Bilowga filimka waxaa nala tusayaa nin maalqabeen ah wuxuu iibsanayaa guri cusub. Ninkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Martin. Waxaa kula nool guriga xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood, Grace iyo Amanda. Hadda wuxuu robot ka soo iibsanayaa shirkad ku taala India. Wuxuu robot-kan u soo iibsaday inuu ka caawiyo qoyskiisa howlaha guriga. Robot-ka markuu soo kaco wuxuu u sheegayaa 3 xeer ee asiga lagu programmeeyay. Xeerka koowaad ayaa sheegaya in marna is dhibaateyn qof bini'aadan ah. Xeerka labaad ayaa ah in uu fuliyo awaamiirta bini'aadamka marka laga reebo in uu ku amraan inuu qof dilo. Xeerka saddexaad ayaa ah in ay qiimeeyaan bini'aadamka jiritaanka robot-ka. Markii ay maqleen filimka midaan, waxay la yaabeen robot-ka hadallada uu u sheegay. Gabadhii yareed ee Martin waxay u bixisay robot-ka Andrei, laakiin gabadhiisa weyn kuma qanacsaneyn imaatinka robot-ka halkan. Martin meesha ayuu ka soo kaxeynayaa robot-ka wuxuuna dejinayaa qaybta hoose ee guriga, wuxuuna u sheegayaa robot-ka inuu qabsado shaqadiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa robot-ku u imaanaya Martin gabadhiisa weyn, Grace, waxayna ku leedahay robot-ka, waxaad ka duushaa daaqadda. Robot-kina wuxuu qaadanayaa amarkeeda wuxuuna ka duulayaa daaqadda. Martin ayaa midaan ogaanayo wuxuu ku qaylinayaa labadiisa gabdhood. Wuxuu leeyahay, waan ogahay Andrei inuu yahay bini'aadan, laakiin ma ahan inaad ku samaysaan waxyaalaha qaar. Waxaad ka soo qabataan in uu ka mid yahay qoyskeena. Subaxdii xigtay, Martin iyo qoyskiisa waxay u soo aadeen dalxiis xeebta. Amanda waxay ku ciyaaraysay faras. Faraskii waxaa ka jabinaya si qalad ah robot-kii. Amanda way xanaaqaysaa. Robot-kii wuxuu dareemayaa Amanda inay ka xanaaqday faraska uu ka jabiyay. Robot-ka wuxuu u sameynayaa Amanda faras alwaax ah. Markaasi wixii ka dambeeyay, Amanda iyo robot-kii waxay noqdeen saaxiibo isku dhow. Amanda aabaheed ayaa arkaya faraska uu u sameeyay robot-ka, wuxuuna la yaabayaa robot-kan siduu u sameeyay faraskan. Martin wuxuu isku dayayaa inuu wax ka weydiiyo robot-ka waxyaabahan uu sameeyay. Wuxuu imaanayaa qolka uu ku noolyahay robot-ka. Wuxuu arkayaa robot-kii oo ciyaaraya, wuxuuna la yaabayaa midaan. Martin subaxdii dambe wuxuu soo wadayaa robot-kii wuxuuna u keenayaa maamulihii, wuxuuna u sheegayaa robot-ka in uu wax ka beddelo si uu bini'aadamka mustaqbalka uu wax uga qabto. Maamulihii wuxuu jeekamayaa robot-ka, laakiin ugu dambeyntii wuu ku gacan saarayaa inuu Martin hadalkiisa wax ka qabto. Martin iyo robot-kii waxay ka soo tagayaan meesha. Intay dadka soo socdaan, Martin iyo robot-kii way sheekaysanayaan. Ugu dambeyntii waxay imaadeen guriga. Robot-kii wuxuu bilaabay inuu farshaxan sameeyo alwaax. Inta badan wuxuu sameynayay saacadooyin alwaax ah. Martin midaan markuu arkay robot-kii aad ayuu u jeclaystay. Martin wuxuu u yimid robot-kii si uu u joogamo asiga, laakiin robot-kii wuxuu sameeyay piano si ay ugu mashquulaan carruurta. Carruurtu waxay bilaabeen inay garaacaan piano-da ayagoo ku faraxsan piano-da uu sameeyay robot-ka. Robot-ka qoyskani waa anfacay, ayagana way jeclaadeen robot-kii. Hadda Martin wuxuu weydiinayaa gabadhiisii weyneed ee Grace inay ka heshay robot-ka qaab dhaqameedkiisa. Grace-na waxay u sheegaysaa Martin inay ka heshay robot-ka